ku dhaweeya kuwa ugu waaweyn ugu qiimaha badan waxa kamid ah inaad xoolahaaga baxsato oo sadaqaysato quraanka in badan oo kamid ah iyo xadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam in badan oo kamid oo la tira koobi karin ayaa arintaas aad loogaga hadlay ruuxa wax baxsada oo deeqsigo gacanta furan sadaqadiisu waxay keenaysaa maraaxishii xaaladaha ugu adag markuu marayo dadka kalena baqayaan oo ay cabsanayaan oo argagaxsan yihiin inuusan isagu nixin oo argagixin oo uusan murgin qabriga qiyaamada meelaha adag mawaaqifta adag marka la marayo sadaqada baxsigeedu waxay keenaysaa inaad gacan furna nafaxaadka iyo khayraadka bisha degayana inta ugu badan aan uga helo waxa loo baahan yahay khayraadka abwaabteeda kala gedisan inta aad ka qaadan karto dadka uga hormar quraanka akhriskiisa sadaqaadka dadka caawintooda dadka dhibaataysan waxtarkooda soonka habeenka qiyaamkiisa khayraadka kala gedisan abwaabta kala duwan كل انت كقادن كرتو ان ددك ugu horeyn karto ugu day laana sida nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maalinta qiyaamada ruux walba waxa looga yeeri doonaa wixii uu badsan jiray irida uu jannada ku leeyahay bash ibarwaaq waano kaalmeyseen ana muraadkiin ilaahay ana sahalo amiin inti islaam muraadkeeda sahalo amiin أنا نكالمسين مساكين تأدو كالمسين السيو إلهي إن كيس كأنها إلهي مرتين على هذه سهلة ممكن غنيرنا إلهي وحقرق على هذه السيو ودعي سمد الله كقبل إلهي بعد ما سنجين خير على هذه السيو دكتي وحصاد يكي وهم دايلنينا وحلو وحيك أو ميك أو قومنا الله كورادي أو دعي كان سيو حسنات الله سيو بعد ما تنتين خير الله نسيو بعد ما تنتين أجري حسنات الله نسيو بعد ما تنتين خير الله نسيو وراتكن إلهي نسهل وما يسق عاد إلهي عذرك من خير إلهي نسيو